سأل الله سبحانه أخرنت بواقته وواحد مهمة قف كبنان تك ونحسن إنه بواق بدن وآخريه ما له بواق أركتام بواق الآخرية مهم بوق الآخرية لكن ما تشارة تقدر كانوا يكون أركتان بواق تآخريان أما مركز تبعات كركتان أو إمالة ولا بس يجوكتا وآخريان مقال كان هذه لو دايدنا فرصة هديات استعمال شو ولي بقى أديكم موبايل كاستعماله أبليكيشن wax badan oo xaqrinta kaaga soo kordhi doonta marka farsamada farsamo cajiiba hadaan ugu cusubtaan ugu soo biir sidoo kale muuqaalka noo sii share garay si dad badan uga faa'iideystaan marka soo dhawaad aan eegno farantaan idin sheegay farsamadan horta marka hore waxaan doonayaa laba qodob oo muhiim ah ka hadlo hadda doonaysid inaad dabeecad ka dhigto aqrinta buugaagta laba shay oo ku dadaal number 1 horta skill al buugaagta inaad ka dhigto waxa isku ciqaabto okay meelaha ka soo akhrisanaysa ama video daawanaysa ugu dhahay wax akhrisku waa muhiim waa in wax la akhriyaa qofku waa inuu akhriyo noqdaa kadib waxaad soo keenaysaa in wax akhriski aad u aragto wax adiga danka ku jirto muhiim ku oo ku qasbantahay inaad samaysid runway dantaada ku jirta oo ku qasbantahay inaad akhrisid laakiin still ha ka dhigan wax sharci ah oo kugu qasban inaad wax akhriso so taas waxay keenaysaa inaad wixii ka cararto marka wax akhriska waliba marka cusub tahay ku noqdo wax fan ah qodobka la isaga waxa weey ku bilow waxyaabaha xiiseynayso haddii wax akhriska kugu cusub yahay isku day luqada fahmi kartana ku bilowd buugaagta sheekada oo kale ku bilow buugaagta ku bilow waxyaabaha hobbigaaga tusaale imika dad qof taariikhda waxa xiisay buug taariikh ku saabsan soo iibso marka labadaas qodob mar walba ka fikir ha isku qasbin oo ha ka dhigin sharciina ha akhriso sidoo kale waxa akhrinaysa noqdaan wax adigu waa xiiseynayso marka soo dhawaad aslaayna farsamadeena waxa jira application cajiib ah oo la yiraahdo Play Books ama Google Play Books waxaan loogu talagalay marka in buugaagta lagu akhristo for some reason application-ka Soomaalidu waa loo diiday ma garanayo in wax barnaan oo la diiday because product walbo ee Google sameeyo qof kasto Soomaali u isticmaali kara marka laga reebo application-kan so application-kan waxa lagu talagalay buugaagta lagu akhristo laakiin haddii Play Store-ka tagto adigoo Soomaali joogo ma ku shaqeynaa marka waxaan sameyn doonaa Telegram-keena linkiga xagga saareeyaan soo gelinaya marka ku soo bir channel-keena si marka u hesho marka application-ka soo gasho waa kana application-ka hadda dib uga baxo buugaagti iyo dhan library xagan bay igu jiraan sidoo kale buugaag cusub ma iibsan karaa hadda buugan oo kale ay furan 0 baa la buugan ganacsi uu ka hadlaa soo marka buugan soo gal hadirtaan waxa halkan ku arki doonaa marka halkii uu iimaray marka waxyaabaha cajiibka ku yahay application-ka kamid ah dhowr qodob baan ka sheegi doonaa qodobka kood waxa weeye buugan waxa ku dhex jira dictionary marka asaga la socda for example imika kelmadda development baan doonayaa haddii aan saa u xajiyo halkan hoos wuxuu igu soo saari doonaa marka dictionary lagu sharxayo waxa develop laga wado so for example development waxay ka timid develop grow or cause to grow and become more mature marka ilaa afar kelmad buu ku sharxaya so qodobkaas waxa weeye dictionary-ga okay qodobka labaad isaga muhiimka waxa weeye translator oo wuxuu leeyahay application-ka asaga ku xiran haddii mobilka marka internet uu leeyahay marka buuga akhrisanayso haddii aad taabato calaamadaas Chinese-kii eeda ku sawiran tahay hagan wuxuu kugu sheegi doonaa marka af Soomaali soo developed way kelmadda oo waxa weeye past tense af Soomaali wuxuu kugu fasirayaa marka horumaray marka haddii buugaag badan oo English akhriso wuxuu ka caawinayaa abkan in kelmadaha kugu adkaado marka uu ku fasiro still Google Translate buu isticmaalayaa so Google Translate wali 100% sax ma laakiin kelmadaha intooda ugu badan ku sharxaya so taasna waa qodobka labaad qodobka saddexaad application-kana ku jecel waxa weeye in uu kaaga sameyn doono buugaagta akhriso notes marka hadhow dib u isticmaali karto toosoo maxaa ula jeedaa haddii buuga imka akhriyo maanta waxaan arkay intaan baan note saartay waan calaamadaystay so notes kala duwan buu siinayaa ilaa 4 midab baa haystaa midabka jaalaha gaduudka cagaarka iyo buluuga marka aad doonaysid inaad notes-kaaga asaa u kala qaybsato note-ka hadda jaala saar imika note-kaas wuxuu noqonayaa xagaar sidoo kale waxaan awood u leeyahay marka haddii note-ka click halkaas tare blast hadaan taabto in marka aan wax ku qori karo oo aan sii sharxi karo aan dhihi karo paragraph-kan waxaan ka faa'iiday so taas waa qodob marka notes-kan maxay faa'iido leeyihiin horta number 1 buugaada dib u akhriso notes-ka waa arki doontaa markaad akhrinayso sidoo kale waxa cajiibka ah notes-kan uu leeyahay way note walba oo marka aad saa u save garaysato waxa lagu kaydinayaa document ku jira Google Drive-kaaga for example buugan oo akhriso iminka week baa ku dhamaysaa ama 2 week ama bil baa kugu qaadatay 200 oo note baa ka samaysatay note kasta waxa ku qoratay kadib hadhow waxa lagu sameeyaa buug yar oo Google Drive-kaaga kugu jira so buuga waxa ku qoran notes-ka aad ka qaadato buugan waxa laga yaabaa inuu 10 page noqdo so buugii 300 oo page ay akhrisay wuxuu Google kaaga sameeyaa marka notebook adigu aad ku gaaro xogtaada kugu qoran tahay oo PDF oo kala ku soo degsan kartid marka waxa dhici karta buug baa akhris 300 oo page bishaan waxaan ka helay buug kale oo 10 page oo aan notes ka qaatay oo waxyaabaha marka aan ka faa'iiday ugu qorayn marka tan waxay u fiican tahay wax akhriska faa'iidadiisa halkaas bay ku jirtaa imika waxaan ugu dhacaysa buug baan akhrinaynaa
qofka buugga markuu aqriyo kadib maalintaas ugu dambayso wixii buugga uu ka saabsanay wuxuu ka hadlayo ilaabaysa soo tan waxay keenaysaa marka inaad retention ka hesho buuggan oo marka week ama bil ama 2 bil sanad kadib marka dib u heli karto noodka akhrisan karto noodka marka wuxuu ku siinayaa inuu dib maskaxdaada u soo celiyo wixii akhrisay ee waqtina uusan kaaga lumin buugga dib ugu wada noqoto for example marka hadii aan ka noqono kan oo banaanka aad tagno Google Docs baan furayaa so Google Docs ka waa kana hadii aan refresh gareeyo buugga ugu sareeya imika halkaas ku yaala waxa notes from marka buug aad note ka qaadato Google Drive ka marka Play Books ka isticmaalaysto kugu soo gareynaya wuxuu ku qori doonaa marka notice from kadibna buugga akhris magaciisa laakiin marka documentiga u sareeyay Google Drive baan ku jiraa imika wali qaybta Docs ka wuxuu dhahay notice from buugga magaciisa laakiin marka daan furo kan xagan waxa ku arki doonaa marka notice-kii laga qaado buuggan marka xagan bay ugu qoran tahay zoom ba ku jira marka arki kara inta note aan ka qaatay xaga sar wuxuu kugu qori doonaa notice from buugga magaciisa kadibna wuxuu ku siin doonaa 5 notes ka tirada inta just example ay imika baan furo buuggan inta note ka qaatay kugu jirta iyo note kasta xogtiisa marka waa waxa uu cajiibsanaa u jeclaa laakiin mid sanadkan 5 book baa akhrisato book baa akhrisan maxaa kaaga soo baxay oo muhiimada uu ku siinayo application kan inagana waxaan doonayaa sababta waxa u qarno ma inaan ku faano aan dhahno 10 book baa akhriyo 20 book baa akhriyo muhiimada wax loo aqrinayo waxa weeye in retention laga helo oo wixii cilmigii bookga ku jira marka uu meel inuu kaydsamo soo kale maskaxda bini'aadamka uma sameysna in ay waxyaabaha qaar ee maskaxda lagu hayo marka waa sababta wax loo qorayo marka fikrad aragto inay fikrada qortaa sababta maskaxdeena inaga ilaahay uu sameeynin wax xifdin karnaa waan maskaxdan ku hayn karnaa laakiin still xalaya maalinta in aad intaasoo kun oo fikrad aragto maskaxdaada way arkaysaa ka tagaysaa marka wixii muhiim ku ah inaad note ka qaadataa marka wax xifdin kartaa laakiin wax kasta oo indhaha qabtaa ma xifdin kartid sidaas la mid cilmiga waxa u baahan tahay inaad note ka qaadato oo marka ay kaaga kaydsamaan marka taasna qodobka kale ugu muhiimsan marka qodobkaas waa tan ugu muhiimsan ee aan u soo qaato muuqaalkan inay ka faa'iideysataan hadii aad doonaysid application kan waxaan soo gelin doonaa Telegram keena ku soo bir waxyaabaha resources ka soo gelin doonaa soo kale inta ka bixin waxaan doonayaa inaan idin la wadaago website hadii aad gasho oo marka aad ka heli karto book kasta oo digital soo buugagta laftirkooda laba nooc u kala baxaan buugagta inaga naqaan waa PDF soo PDF ka iyagu waxay ku xun yihiin wax akhrinta kuma fiicna laakiin kuwa imika aan isticmaalaha kan ku jira buugagta waxa la EPUB baa la EPUB so PDF ka waxay kaga duwan waxa loogu talagalay publishing ka midabka ka bedeli kartaa note ba ka qaadan kartaa waxay u sameeyeen waxa loogu talagalay digital book ahaan loo isticmaalo halka PDF ka loogu talagalay in la daawaco waxyaabahaas oo kale waan old version kan ba ka fiican so EPUB books ka meel laga heli karno jirta waxaan doonayaa website in aan idin tilmaamo website ka any book hadii buugga magaciisa sax ah u qorto qaabku u qorayaa research kiisa wuxuu ku xun yahay hadii buugga magaciisa wax ka bedesho ma ku soo saaro laakiin exactly buugga soo qorayaa ku reeso ama qoraaga buugga magaciisa ku qorto ku soo saaro marka website kaasna aan doonayaa inaan tuso hal book baan ka soo download gareynaa website kan aan doonayaa in loo daago waa ka magaciisa waxa la library genesis waxa ku gali kartaa libgen.is so marka inta qorto waxa ku soo baxay screen kan so waa very zoom out isaga mobile kuma loogu talagalin marka meesha search ka daa'imka taabto ii soo dhaweynaya kadib wuxuu ii ogolaanayaa marka xagga inaan ku qoro book aan raadinayo magaciisa for example minka bookgan baan doonayaa inaan digitalkiisa helo waxa la yiraahdaa never split the difference waa book loogu talagalay negotiation-ka dadka sida loola murmo inaad ku barato marka qofka rabo muran inuu barto aad buu anfacayaa iyo qaabka dadka wax looga dhaadhiciyo marka tusaale imika bookgaas magaciisa aan ku qorayaa marka sad arkaysan bookgi aan ku qoro search baan u diray oo ii soo saaray marka daaragtay imika waxa kale oo ku eegi kartaa qoraaga buugga imika waxa ku qoran kan Chris Voss baa ku qoran marka qoraaga buugga author-kan asaga hubin kartaa buugagta laga yaabo in isku magac noqdaan mararka qaar marka ka hore Chris Voss weey waxa kale oo doonayaan in isku hubiso buugga nooca uu yahay formatkiisa waxa ku hubin kartaa marka dhinaca u jiidada geeskana imaado extension kiisa halka waxaan arkayaa marka EPUB inuu yahay halka offers EPUB soo qaar PDF ku jira ama qaar MOBI iyo versions kala laha jiraan EPUB kan doonaya marka saa ula soo dago just click baan siinaya buugga magaciisa kadib xitaa waxaan arki doonaa buugga coverkiisa oo coverka buugga coverkan iyo kameesh ku soo dhisma laha laakiin se isku eegin buugga waxa laga yaabaa versionkiisa dambe inuu yahay kan marka si aan u download galaysto halkaan ay ku qoran tahay mirrors ka imaanaya soo mirrors kan hoose waxay siinayaan marka linkiga kala duwan oo marka buuggan ku jiro marka linkiga ugu horeeya libgen and IBFS kaas ugu fiican kaas baad taaban doontaa kabacdina halka markay timaado get baa taabanaysa halka u soo kadib marka buuggi downloadkiisa lagu bilaabi doonaa imika oo fiirsato downloading file inta waxa ka dambeeya buuggaaga hadaa furto wuxuu directly ku geyn doonaa marka Google Play Books kaaga
وهالكاس باكو خرسن تمرك ويبسايت كان ويبسايت عجيبة عبوقتا libgen.is isaga linkiisa waxaa soo geli doonaa telegram keena xagga sare ayaa ku soo biir wax badan baa ka faa'iideysan doontaa muuqaalkan haddii aad ka faa'iideysatay noo sii share gareys dhalinyaro badan uga faa'iideystaan aad baa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh